السلام عليكم أصحاب شرطة عشر كتابة waxaan ku baranaynaa contractionska waa verb-gii oo short form loo qoray yani isku soo yareynayo waa isku soo gaabinayo marka I am hal qaab ay leedahay contractionkeeda waa hal qaab waa I-da iyo empty aan isku soo gaabinayo kaliya marka I am not basheed am not you-da laba qaab waa you are not waa long form samaha short form you're not in aarta la soo yareeyo oo you lagu soo dejiyo ama in la dhaho you aren't labadaas qaab loo soo gaabiya waxaa loo yaqaanaa ciwaankaas grammarka contractions he is not he isn't she is not she isn't it is not it's not it isn't we are not we aren't they are not they aren't soo marka marna verb-ga iyo subject-ga la isku gaabinaa marna waxaa la isku gaabinaa verb-ga iyo negative-ka la isku gaabinaa not verb-ga iyo not-ka la isku gaabinaa marka markii am laga reebo inta kale dhan waxay leeyihiin two form oo loo soo gaabiyo leeyihiin am kaliya laakiin maxaa waaye verb-ga iyo subject-ka la isku soo gaabinaa ayada amta iyo not-ka la iskuma gaabin karo ma lahan meesheeda banaanta okay I am not you are not you're not you aren't he is not he isn't she is not she isn't it's not it isn't we are not we aren't they are not they aren't okay marka ayadoo tusaale la geliyey anaa isla aragno I am not tired anigma daalin oo soo aragno samayn you are not late you're not late you aren't late he is not a teacher he isn't a teacher she is not angry she isn't angry we are not ready we aren't ready they are not here they're not here they aren't marka tusaale aan soo marnay oo negative-ka ahay oo short formkiisa laba qaab oo noqdo aan soo qorno waaye ayna kala gada waaye hal qaabana taakiya verb-ga iyo amta bisaan isku soo gaabiya okay I'm not tired you're not late you aren't late he is not a teacher he isn't a teacher she is not angry she isn't angry we are not ready we aren't ready they are not here they aren't here marka kana waxaan ku baranaynay long formka iyo short formka marka cashirada waxaa u gagabanayna waxay tahay inaad si taxadir iyo cashir kasta u daawataan oo aad fahantaan because haddaa idin tuso hoos waxaan sugaya grammar tiro badan grammar dhan waa exercise inta ku bilaabana exercise inaan ka shaqeyno waxaa naga rabaa waxaan exercise inaan ka shaqeyno so marka waa iskala shaqeynaynaa oo idinkiina ku shaqeynaysiin wixii way isku soo laabanayaan keliya inay fahantiin waa muhiimadda oo hadhow maskaxdaada inay barato oo aad markii aad imtixaan galaysaan aad ka shaqey kartaan waayo labaatan marka ugu dambeyso waa 100 xabo waaye 40 waxaa ku xig 60 80 iyo kama ku xisaaba marka 100 because extra exercise markaa dhacnay extra exercise practice kan keliya 100 xabee marka unit kasta waxaan isku daynaa inaan 100 xabo exercise marka ugu dambeysa ka shaqeyno waayo 100kaas exercise aan ka shaqeynayno waxay naga caawinaysaa inaan yani luqadda ku fikirno oo aan wixii aan gelinayno iyo wixii aan qorayno unit-ka si fiican noogala galo marka taa muuqaalkiisa xiriir ayaan kula kulmayo ayaan ku tagayaa horumar caafimaad